shirkan wadatashiga ah ayaa looga hadlayay qorshaha horumarinta warbaahinta dalka ee 5 sano ee soo socota, dib u eegista xeerka warbaahinta iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dhinacyada warbaahinta iyo dhaqangelinta istiraatiijiyadda qaranka ee ka hortagga fikirka xagjirnimada. waxaana maanta magaalada Muqdisho ku soo xiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. shirka muddo 3 maalin ka socday magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha, waxaana ka qayb galay wasiirada warfaafinta ee dowlad goboleedka ka jira dalka, ururada saxaafadda iyo khubaro aqoon u leh horumarka warbaahinta. Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Koronto ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka ee ay wada saxiixdeen wasiirada dowlad goboleedka ee dhinaca warfaafinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dowladda dhexe. ka uu goobjoogka ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre. ka qaybgalayaashu waxay isla garteen in dib u eegis lagu sameeyo qodobada cabashada laga qabo ee xeerka saxaafadda Soomaaliyeed ee baarlamaanku ansixiyay 26 December 2015, madaxweynuhuna saxiixay 9 January 2016, kaasi oo laga soo jeediyay in muddo 2 toddobaad gudahood ay dowlad goboleedyada iyo saxaafaddu ugu soo gudbiyaan wasaaradda warfaafinta si xeerku u noqdo mid la jaan qaadi kara nidaamka ama nidaamyada caalamiga ee saxaafadda. ka qaybgalayaashu waxay isku raaceen in xeerka saxaafadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu noqdo kan qaranka, ayna dowlad goboleedyadu si buuxda u waafajiyaan xeerarkooda saxaafadda. ka qaybgalayaashu waxay isla garteen in dhaqangelinta xeerka saxaafadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga wada shaqeeyo bacdama xeerku uu maareynayo cabashooyinka iyo habdhaqanka shakhsiyaadka ama hay'adaha warbaahinta ee ku xadgudba xeerka saxaafadda, anshaxa iyo asluubta warbaahinta. waxaana la isla qaatay in lagama maarmaan ay tahay in dhammaan dalka laga sameeyo wacyigelin lagu sharaxayo muhiimadda dhaqangelinta xeerka saxaafadda. fulinta barnaamijkan waxaa laga codsaday hay'adaha warbaahinta taageera iyo beesha caalamka inay gacan ka geystaan dhaqangelinta xeerka saxaafadda. wasiirada warfaafinta ee dowlad goboleedka xubnaha ka dowladda dhexe oo ka hadlay xiritaanka shirka ayaa guul ku tilmaamay qabsoomidda shirkan, ayna bogaadinayaan xoojinta xiriirka warbaahinta Soomaaliyeed. wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay horumarinta warbaahinta dalka. waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiirada dowlad goboleedyada warfaafinta oo waqtigooda iyo jihdigooda u soo horay halkan noogu yimid, iyagoona ixtiraamayana waqtiga kooban oo ay haysteen aan si fiican uga wada shaqeynay horumarinta warbaahinta dalka. marka dalkan horumarintiisii warbaahintana wuxuu ka sugayo waa suxufiyiinta Soomaaliyeed. annaga ka dowlad ahaan iyo ka wasiirad ahaan waxaan naga go'aanay kala shaqeyno si alaal sidii loo horumarinayo warbaahinta dalka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa uga mahad celiyay wasaaradda warfaafinta qabsoomidda shirkan muhiimka u ah dalka, waxaana warbaahinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay qayb ka qaataan horumarka dalka iyo dhismaha dowladnimada. raggan iyo dumarka halkan yimid oo ay daawanaya kuwa TV-yada hadda horteyda taagan, waxaan idin sheegayaa sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo dowlad goboleedyada dalkan mas'uul uga saaran yahay ayaa idinkana dalkan mas'uul idinkaga saaran yahay. waa inaad kala doorataan inaad doonaysaan inaad dalka kala goysaan iyo inaad soo dhaweysaan. waa inaad kala doorataan inaad runta iyo xaqiiqda ka hadashaan oo Ilaahay ka baqdaan iyo inaad wax siyaasadaysan ka hadashaan. waa inaad kala doorataan inaad ummadda Soomaaliyeed u sheegtaan wanaagooda iyo inaad bumbuunisaan xumaanta. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.